Iskuulkaygii ayaan aaday aniga saaxiibkay xilli hore si aan u soo qaadano xiisadaha iyo casharradeena. Kadib waan tagay aniga saaxiibkay. Waxa aanu gaadhnay goobtii iskuulka. Dabadeeto waxaa noo bilaabanaya xiisadaha. Aniga saaxiibkay waxa aanu mar kastaba ahayn dad si joogto ah u wada shaqeeya. Saaxiib, waxa aan arkay kursiga wax ku qoran oo ah waxaa tahay qofka koowaad ee la cuni doono. Waa aan ooyay, aad ayaan u ooyay. Dabadeeto waxaan arkay teendhooyin. Teendhooyinkan oo ku dhex yaalla dhul kayn ah. Kayntii ayaan horay u galay. Teendhadii baa waxaan ku arkay wax aad iga cabsiyey oo midi wata. Waan ooyay, waan qayliyay mar kale. Dadka waxaan ku dhahaa, halkan waxaa degan qof horor ah. Maya, macalimadeydii waa ay rumaysan laadahay hadda. Waan eegnay mar kale. mar kastaba waxaan u sheegaa in halkani ay tahay meel aad u khatar badan, isla marhaantaana anigu aan dareemayo cabsi dhankayga ah. Imay rumaysan macalimadaydu iyo saaxiibkay. Halkani waa tuubada biyaha ee suuliga ama shaawarka loo yaqaano. Waa aan qubaystay. Qubayskaygii ayaan iska wataa. Waxa aan ka qubaysanayaa dhididka iyo bahalka. Albaabka suuliga aad ayuu u ruxmay. Waan ku orday aniga oo baqaya. Haddana waxa aan fiiriyay qoraal kale oo ku qoran meenta. Waxa aad tahay keligaa. Haddana muraayadda ayaan ku arkay muuqaal sawir aad u cabsi badan oo i fiirinaya. Albaabkaygii ayaan dib ugu laabtay. Waa aan soconayaa, keligay ayaan ahay. Dariiq ayaan lugaynayaa. Waa meel kayn ah. Waa habeen mugdi ah. Midi iyo dhiig iyo maryo ayaa isdul saaran. Waa naxdin iyo cabsi kale oo ii bilaabatay. Dib baan u soo cararay. Xil habeennimo ah. Baqdintii kadib waa aan seexday. Waa aan walwalsanahay. Waxa aan dareemayaa dhawaqa. Midi ayaan haddana ku arkay meel sagxadda dhulka guriga hoostiisa ah. Waa aan booday. Waa aan yaabanahay. Maxay tahay aniga cidda i daba socota ee mar walbaba i cabsi gelinaysa? Waa aan ka soo degay bartii aan jiifay. Waxa aan eegayaa dhulka. Mar kastaba waxaan arkaa muuqaalo cabsida iyo qoraallo ii digaya oo laygu digayo aanan dunida ku sii waaraynin oo lay cunayo. Anigu maxaan galabsaday? Maxaa layga cabsiinayaa? Qolkaygii waan ka baxsaday. Orod ayaan ka galay. Macalimadeydii ayaan u tagay. Macalimadeydii waxaan ku dhahayaa mar kastaba dhib ayaa iga haysta qolkaygii. Waayo waxaan arkayaa muuqaalo laygu digayo dhibaatooyin. Muraayadda ayaan fiiriyay. Mise waxaan arkay madax qoorta laga jaray iyo midi dhiig leh. Waa cabsi kale oo haddana aan arkay. Tani aniga yaab ayay igu tahay. Cabaar kadib waxa aan ku fekeray wixii aan samayn lahaa. Muuqaalkii naxdinta iyo cabsida badnaa iyo dhibaatada iskuulku intaas ayay mar kastaba igu ahayd daawasho wacan.